إلهي عد uga cilmi badan taariikhda ma jirto subhanahu wa ta'ala cid ilaahay uga xikmad badan taariikhdana ma jirto marka ilaahay subhanahu wa ta'ala aadamaha abuuray khalqiga abuuray basharka sameeyay gaal iyo muslim ba abuuray ayaa inooga sheekaynaya soo jireenkii aadamuhu min aabaheen aadam calayhi salaam inooga sheekaynaya marka meel kale taariikh u raadsan mahayno taariikhda xaqiiqadihi waa taariikhda ilaahay subhanahu wa ta'ala ambiyadiisa uu kaga sheekay waxaynu ka soo sheekaynay oo inu ku bilowno sidoo quraankuba uu ku bilaabay qissat al-bashariyya taariikhda aadamiga oo ka bilaabanta abuuritaan ilaahay abuuray iraada doonitaan ilaahay doonay mashii'ada ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulkan inuu ku abuuro khaliifa aadam aabihi yahay xaawa hooyadoo tahay durriyad ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka beero durriyadaasi ay bashar ay noqdaan nasaban wa sihran ilaahay dhexdooda uu ka dhigo ummadahaasi ay midabyo kala duwan kaladho kala duwan muuqaalo kala duwan qaarado kala duwan ay ku noolaadaan kadibna ilaahay ambiyo uu soo diro kutub ilaahay soo raaciyo ambiyada aadamahana la siiyo inuu leeyahay doorasho inuu doorto inuu muslim noqdo iyo inuu gaal noqdo aadamaha la siiyey inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga ayuu u igmaday oo uu yiri aqligan kugu laray iyo kitaabkan kugu soo diray iyo ambiyada aan soo raaciyay waxaad leedahay in aad dooratid hadaad iimaan dooratidna jannaad igu leedahay hadaad gaalnimo dooratid iyo faasiqnimo iyo faajirnimo hadaad dooratid adiguna kadib marka ay kugu oogmatay xujadii diin raacu waxa aad agteeda aad ku leedahay naar wal ciyaadu billahi tabaaraka wa ta'ala waxaynu maanta maraynaa ibliis markay ilaahay subhanahu wa ta'ala xarigii ilaahay markuu furay ee uu gaaloobay ee uu kibray ee uu diiday inuu qaato weedhi Allah subhanahu wa ta'ala oo u sujuudo aadam calayhi salaam wa ki ilaahay subhanahu wa ta'ala ku yiri qala fahbit minha فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فاهبط منها كدك جنة فما يكون لك أن تتكبر فيها كوما سغنان إن آد كبرتد جنة قده هذا أذيقوا أوامرت إلهي ديدية ولبا آد كبرتد نعمد إلهي نداغدد كوما سغنان إنك من الصاغرين كوى اللدليي دنبغا كو يراضي لحقري آيات كم متاهي حقرد نصب لغوما حقرن مدب لغوما حقرن أقول لغوما حقرن قبيل لغوما حقرن waxa aad ku xaqiir noqoto ibliisow marka diiday ilaahay subhanahu wa ta'ala aadamuhuna waa laba inna akramakum indallahi atqaakum waxa idinku sharaf badan oo idinku gobsan oo idinku laandeersan oo idinku magac dheer oo idinku qiimo badan kuwa ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala waxa idinku dulaysan oo saagiriin ah oo idinku liita oo Allah iyo aakhiro agtiisa qiimo Allah kulahay subhanahu wa ta'ala innaka min as-saagiriin qofka ka fogaada dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala waynadii soo sheegnay xalqadii hore ibliis inuu ilaahay ka dalbaday markuu arkay inaanu korka wax allaala wax janno u yaala inaanu jirin qaala rabbi fa anzirni rabbow dib iidig ilaa yawmi yub'athuun ilaa yawm al-qiyaamah ay oofsan ilaahayna waa kii ku yiri qaala fa innaka min al-munzariin kuwa noloshooda dib loo dhigay ayaad ka mid tahay oo lagu oofsan maayo halka wuxuu bilaabayaa ibliis in uu qeexo maadaam uu daar u galay in uu aadam calayhi salaam cadaawad uu kula jiro noloshiisa inta ka dhiman halkan waxa uu ibliis ilaahay inooga sheekaynayaa hawlaha uu ibliis qabanaya maxay tahay ibliis baana sheegay hawsha uu qabanaya si uu aadam calayhi salaam iyo duriyadiisa uu u duufsado ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheekaynayo mahaamu ibliis wuxuu ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala ba'da a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim qaala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim بسبب ما أغويتني wuxuu leeyahay mar haddii anigu aan rashaadkii iyo hanuunkii seegay oon ballantii ka baxay iyo cahdigii anigu aan hoggaansami waayey la aqcudanna waxaa dhab ah inaan aniguna u fadhiisto aadam iyo ubadkiisa
صراطك المستقيم جدكاagii toosnaaye allow laguu soo marayey ee jannada lagu gelayey inaan aniguna siraadkaa dhexdiisa u fadhiisto oon ka leexiyo oon ka fogeeyo oon kugu diro oon isku daawado ayaa igu ballana buu ibliis galay laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim siraadkaasina waa jidkii toosnaa ee aynu marka aynu tukanayno ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanno bismi illaahi araxmaani araxiim ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin nebigu sala allahu calayh wasalam maalin saxaabada darsi siinahaya ayaa darsi camaliyuu siiyey intuu u soo qaado meel ciida intuu kor yimid ayuu nebigu calaamad boqsi oo kale ah afar geesa ayuu nebigu sawiray sala allahu calayhi wasalam waddo dheerana khad buu saa nebigu ciiddii sidaa ugu sameeyey layn markaasuu yidhi siraadkii ilaahay mustaqiimkii waa kaas agagaarkiisana calaamado kale khadad kale ayuu ka saaray kaasina waa waddooyinkii shayaadiintu ay idinku yeedhayeen si ay siraadalmustaqiimka ay idinka leexiyaan oo xagga naarta walciyaadu billaahi ay idinla tagaan ihdina siraata almustaqiim jidka toosan ilaahow nagu hanuun ilaahay baa hanuunahan bixiya ilaahay baa kugu suga oo marka hore waxaad weydiisanaysaa ilaahow subxaanahu wa tacaala i hanuuni markuu ilaahay fadli hanuunka ku siiyana ilaahay waxaad weydiisanaysaa ilaahow igu sug hanuunka ilaahow igu sug habaat waxa la baad ilaahay weydiisanaysaa subxaanahu wa tacaala kadibna ilaahay waxaad weydiisanaysaa laabtaada inaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu ka leexinin siraata almustaqiimka inaanu ka leexinin rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxma inaka anta alwahaab halkaasaad iyadna ilaahay waxaad weydiisanaysaa subxaanahu wa tacaala inaad ku sugnaatid habaatkii allah subxaanahu wa tacaala ibliis taasuu ka soo horjeedaa hanuunkaagiibuu ka soo horjeedaa ibliis wuxuu ka soo horjeedaa habaadkii sugnaantii diinta ku dul sugnayd ibliis wuxuu ka soo horjeedaa inaanad diinta aanad ku sii soconno khaatimadu aanay kuu hagaagin waadigiile markaa laa tuziq quluubanaa bacda id hadaytana rabbanaa inaka anta alwahaab wuu sii waday ibliis mahaamkiisiibuu ka sheekaynaya ilaahayba qur-aanka inooga sheekeeyey wuxuu yidhi ثuma la'aatiyannahum min bayni aydiihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله أكبر بلن تاسو يسوون قلي ثم لآتينهم من بين أيديهم هرتودان من قداشودان مري مدكتودان مري بدحدودان مري وحان كشقين بيوري إنا ند هلين بدن كودا كوكو مهد عليبه قلبda aad siisay iyo nimcada aad siisay iyo khayrka aad siisay iyo waxyiga u soo dhaadhicisay iyo nabiga aad u soo dirtay iyo maanka iyo aqliga aad ku mutaysatay iyo arsaaqda aad siisay iyo wax allaala waxa nicmada min Allah subhanahu wa ta'ala wama bikum min ni'matin fa min Allah wa in ta'uddu ni'mat Allah fala tuhsuha ilaahi nicmadihi sana koobi karimaysa wax allaala waxa aad ku dul sugantihiin waa nicmad iyo qalad Allah subhanahu wa ta'ala ayaa waxa uu leeyahay ibliisi ثuma la'aatiyannahum min bayni aydiihim hortoodaan mari oo dabadoodaan mari oo midig baan ka istaagi oo bidix baan ka istaagi waxaan kala dagaalamay buu yiri waxaan kala dagaalamay inay ku mahad celiyaan gaalaan ka dhigi buu jaahidiin baan ka dhigi munkiriina liljamiil jamiilka iyo quruxda iyo wanaaga iyo falkasan ee aad ku mutaysatay kuwa diida ayaan ka dhigay Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ardaah radiyallahu anhu misaga abihiba oo aayada inoo sharxaya ayaa wuxuu yiri thumma la'atiyannahum min bayni aydihim waxaan shaki ka gelin buu yiri aakhiradooda aakhirada waan ilowsiin wa min khalfihim diintooda ayaan ka qasay diintooda inay ku toosnaadaan ayaan kaga ciyaaray wa an aymanihim uraghibuhum fi dunya adduunkan u qurxin buushi daldalaalka adduunka ayaan u qurxini si ay u iloobaan ta aakhiro wa an shamaa'ilihim ushahhi lahum almacaasi maasiyadan macaasi maanta
إن وقت هكا مساجد كهيب الفريسو ساعتكو اعتكاف كتاب قرآن سوق قاضو سفي عنه ويسيسو لبر ركعة تحية المسجد كتوكو مساجد كاس كدح فريسو جزء كا قرآن كا أخري كعل علي أفلا يتدبرون القرآن قرآن كتدبر أولا كالي أذكار هالكا محيطو لكو أخرسو صلاة محيطو لكو سوق عريريga adduunka ugu daran ugu adag ba dareemaysa isku karimaysid oo hawshiisiiba waa shaytaan hawshiisa inuu wax allaala wixii cibaado ahna kugu adkeeyo wax allaala wixii macaasi ahna inuu kuu qurxiyo wax allaala wixii alla kuu dhaweynaya inuu dhadhaar ka saaro wax allaala wixii alla ka fogeynaya nafta jecel in ay muxuu uu kuu qurxiyo waa hawl qofka laga yaaba dhalinyaradu inay 2 saacadood filim daawadaan 2 saacadood kubad ay wax ku qaataan saacado fara badan inay heeso maxay ay ku qaataan saacado fara badan fadhi sheeko oo dux badan aan lahayn oo aqoon badan aan lahayn oo xus ilaahay fara badan aan lahayn ay ku qaataan saacado fara badan bay maalin walba majaalis aynu ku qaadanayno fadhiisanayo majaalista badankeeda uu ku yar yahay dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala xan iyo siyaasad iyo isku dir iyo maqnaasho iyo hadaan macaasi kalaba aan la sameyn wala limaadna waxa soo dhan naftina way doonaysaa waana hawshi shaytaan thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa maxay wala tajidu aktharahum shakirin kuwa ku mahad celiyaba noqon maayaan bulay Allah subhanahu wa ta'ala marka hawshiisu waa maxay iyo ballanta iyo ahdiga uu galay waa maxay inaanay ilaahayna u mahad celin oo nicmada Allah subhanahu wa ta'ala aynu ilowno oo aynu iska soo qaadno aqoonta ana bartay xoolaha ana shaqaystay magaca ana kartidiisa ana leh oo wixii adigu aad isku nisbaysid halka loo dhan lahayd min Allah buu ka yimid ilaahay buu ka yimid subhanahu wa ta'ala وصي وضع إلهي سبحانه وتعالى إبليس آيات فربضن بو إنوغش لأن عدو كوادة أضلاء هيبا إبليس عدو كوادة إنا آذن أوليه وإبليس بنص القرآن سيدو إلهي إنوش سبحانه وتعالى عداوة دي سنة عداوة قرصون معها وكدس كوما صواب حي قف آنت قرنين محيط ولي معها إلهي با كوقي حي أذونا وذوكتي قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وحي قال ربي بما أغويتني ربو مرحدي أنيقو هنون إساقي لأزينن لهم في الأرض بلن وحانقلي أنه معاصي دلك كركي سيال يأدون جعيل لابتو دينا كبيرو oon dhulka u qurxiyo oon u qurxiyo hadii ay buu ku rooyahay macsiyada inaan u qurxiyo wala ughwiyannahum aniguna inaan baadi ka dhigo ajma'in ballankooda ayaan rabbo kula galay Allahu akbar wala ughwiyannahum ajma'in gabigoodaba muxuu ka soo reebay illa ibadaka minhumul mukhlasin ki isagu adoonku u noolaha ee adoonnimadaadii ka soo baxa xaala kawnihi mukhlisan isaga oo mukhlis ah oo hufnaan wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisiina lahu ad-din al-ikhlas halka uu quraanka ilaahay inoogu sheegay illa ibadaka minhumul mukhlasin al-ikhlas wa ilaahay doonitaankiisa adiga oo wax kale ku leeynin ilaahay baryootanka iyo yeeritaanka u yeerayso adiga oo cid kale u maraynin ilaahay u adoonsanaanta ilaahay u adoonsanaanayso adigoon cidna istusaynin cidna ha ku maqasho aanay ka ahayn oonad munaafiqnimo kugu jirin laakiin doo ilaahay agtaada ku weyn yahay sujuudaadu khaalis u tahay cibaadadaadu khaalis u tahay akhlaaqdaadu khaalis u tahay haddaad simbiriiraxatid ama aad siibatid toobadaadu iyo soo noqodkaagu khaalis uu yahay لتكون كلمة الله هي العليا كلمة إلهي إني سريس إني تهي وحي قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين يقول أبوي لك إنا نقرحيه معاصي إنا نقرحيه ولأغوينهم أجمعين جدك إنا كليحيه أن آخرته السيجيه أيا يقول الله نبويري إلا عبادك منهم المخلصين الضونمو
qofka xaqiijiyey mooyaane ee weliba ikhlaas iyo hufnaan ku darsaday kaama kara buu addoonka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo darajooyinka ugu qiimaha badan ee aadamuhu uu gaadhaa afdal daraja oo aadamuhu uu gaadhaa waa inuu xaqiijiyaa cibaadat allahi tabaaraka wa tacaala markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doonay nabigeeni suubana sala allahu calayhi wasalam inuu ilaahay qur'aanka ilaahay inuu ku ammaano isagoo ammaantiisa meelo fara badan uu ku ammaanay ayaa de maqaamka ugu sarreeya uu nebi maxamed gaadho ku mutaystay ammaanta ilaahay waa maqaamu alcubuudiyati addoonkii ilaahay markuu nebigu xaqiijiyo addoon ilaahay baan ahay ee uu xaqiijiyey taasuu ilaahay nebi maxamed ku ammaanay sala allahu calayhi wasalam maqaamkii iyo darajadii markay qur-aankii ilaahay gaaladii ka murmeen ee ay yidhaahdeen waa beenaale ee ay yidhaahdeen waa gabayaa ee ay yidhaahdeen waa saaxir leh ee ay yidhaahdeen dad kaluu ka soo dhegeeyayo isaga hawshan isagaba kuma socoto ay dhibeen ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul in kuntum في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين كل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدو شكيد كجروا وحيga النبي محمد كسو دادعيه ee adoonkayga ah waxaad la timaadaan bal aayad kamida keena suurad kamida keena hadii aad kartaan karimaysaane مقامك إلهي وحكو أمان النبي محمد قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الضون كيغا وحيغا نكد جني هدو الشك إذن كجرو وأضون ماذا إلهي سبحانه وتعالى كو أماني إلهي النبي وصي أماني صلى الله عليه وسلم سقو الضون نمو إلهي إنو يهي كو أماني إلهي وحيد سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلهي ما هدما أسقنات إلهي إلهاسو addoonkiisa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kitaabka ku soo dhaadhiciyay soo dhaadhicinta kitaabku waa galad iyo nicmad ilaahay ciday ku soo dhaadhicina waa addoonkii oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam halkaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeena ku ammaanay addoon ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu nabigu dacwadda ilaahay u qomay diinta inuu faafiyo dadka ilaahay inuu baro ilaahay dadka inuu ku xiro oo hawlaha la qabto adduunka hawsha ugu qiimo badan ah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayr kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar maqamu ad-da'wati ila Allah dadkoo ilaahay dadka loogu yeero dadkoo ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa dadka looga sheekeeyo oo cadaabtiisa looga digo oo axkaamtooda loo fasiro oo iimaankooda loo sugo oo akhlaaqda dadka kor loo qaado adigana tusaale aad uga noqotid inay kaaga daydaan wixii bariiri xasiisiibasho kaaga yimaadaan ilaahay dambi dhaaf subxaanahu wa tacaala la weydiisto wa darajatu al-anbiya درجاتي واتي النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء علماء وحي دحلين وحي أنبياء إلهي هوشي أنبياء إلهي أي هيان ودينتا أي فافينيان وشرف أي مقام أبترسي ملاض إني كحدناته آدم ونوح وإبراهيم وإدريس عليهم السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شاء الله أن يرسنا الشرف بدن إنه أبترسي ملاض هل كأي قادوت كم بالنقطة ذاتك إلهي سبحانه وتعالى بريا نبي ذي أدخل ديانا يسينا وحي لغو سميان لغو سميني رسول الله وحي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وحان أركيا ضد نبيو ضد كودي متكرمي نبيا كان أركيا ومضي نودري الله كرمي نبي كان أركيا عذب آني رمينو آني محيطو الآني لسعنين marka dacwadu meel maxay tolo qurux badano kaarbad cas lagu dhigayo lagu soo dhaweynayo maqaamka sare aad ku qaadanaysid oo kaliya maxay tolo maaha waa lagu dhibi waa lagu hiifaari waa lagu xaban waa lagu xidhi waa lagu dili xoolahaaga laga qaadan waa lagu fogeyni waa lagu nici diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala maalin allaala maalinta ay ziyaado أثرك إيرادك دعوة bulshada uu ku ziyaadaba ogow waa maalinta naca iyo nacaybka uu ugu farabadanayo in allaala inta lagu wada jecel yahay lagu soo dhaweynayo hadhicin lagu koolkoolmayna ogow baaqaagiya dacwadaadii meeshii la rabay ma gaadhin sheekhaygii sheekh Shacraawi raxmatullaahi calayhi raxmatan waasi'a oo tafsiirka quraanka masarna ugu dhigay ayaa waxa lagu yiri joornaal ka soo bixi jiray Masaro Rolls Yusuf la yiraahdo oo joornaalada waaweynka ee caanka ah ee Masar aadka loo akhrista ahaa oo qolooyin iska cilmaaniyiin oo imtixaanahi ay soo saari jireen ayaa waxay bilaabeen markii sheekha dacwadiisii faaftay
telefishinkii qur'aankiisii faafay ummadii oo dhan ay ku xidhatay fanaaniin fara badan oo heesi jiray ay ka tageen oo toobad keeneen gabdho fara badan oo raqaasi jiray wixii inta iska dhaafeen xijaabkii xidheen oo sheekhi ku wada hoos ooyeen oo ummad fara badan ay sheekhi ku xidhantay ayaa hinaas qabto waa markii dacwadiisii faaftay ee ummadii ay gaadhay markaasay bilaabeen inay joornaalkii sheekha ku duraan waxba ma aha wadaad ma aha hawl ma wado waxba uga hooseeya markaasaa sheekhii loo sheego layidhi joornaalkii caanka ahaayee Russell Yusuf loola jiray ayaa mahan adiga ayuu ku hadal hayaa muxuu sheekh Shacraawi yidhi ma loo jawaabo warqad ha loo qoro article ha loogu jawaabo waxaasoo dhan ma odhan muxuu yidhi maantay dacwadeedu najaxday buu hadday Russell Yusuf ka hadashay oy bilowday inayna naqdido waxay ogaatay buu yiri weedhaydii kelmadeedii dadka maxay toolay inay gaadhay in allaala inta aad hooska iska fadhideed hawshaadu iska gaabaga ay tahay kitaabka la akhrinayo inta ay la sheegayo ay tahay ee dadka aanad hagideedii aqooneed aanay ummadii kugu xidhmin allaala wax dhibo lagu hayo male maalinta laakiin saameyn aad kelmadaadu ay lahaato ee may iyo haaba aad oran karaysid maalintaas cadaawadii ugu darneedoo dhan ay kugu dhacaysaa in allaala inta ay cadaawada ay kugu ziyaadana waa in allaala inta ilaahay subhanahu wa ta'ala aad u sii dhawaanaysid idan markii rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam dacwadii u kacay ee uu qumay wuxuu ilaahay ku amaanay وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد القرآن كدغيس وأنه لما قام عبد الله أدونك إلهي مركو قمي يدعوه يسوى ددك إلهي وقباقيو إلهي ييريا كادوا يكونون عليه لبدا ويسكو قتغين إني عذاذيان ويجدك جدقوي أي نبي أولي صلى الله عليه وسلم ونجاح الدعوات ونعود دعوة بر الله لمركي يباقى وحا ونجحيا وحضب انت أعداد إلهي نعبي انت أذيك أي بكل نعبيه كل بشاريسو إلهي بانده قد دوانسا سبحانه وتعالى إلهي مركو أمانة النبي وسيوه صلى الله عليه وسلم إلا عبادك منهم المخلصين تبا إن لك شيء درجة دي وقوين هذا إلهي ونبي محمد وكو أمانة وحكمتها صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ودرجة وحل إلى هذا مقام المناجاة والقرب أمرك الرحمن إلى نبي عزمي صلى الله عليه وسلم أو مسجد الأقصى جاي أو كقاضوا للمي سماوات العلى وجاي صلوات كلا قصوا أمرها هي هل كاسوا إلهي كشفرين نبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلهي حمانها كهفنا رحمن في سبحانه وتعالى نبي محمد كلا المي هبين من المسجد الأقصى إلهي سماوات كأجي سبحانه وتعالى محول لكن كو أماني سبحان الذي أسرى بعبده الضونك مركا إبليسي بلنتو إلهي لقال محايد محيري إلا عبادك منهم المخلصين الضومها هذه عبادة كوه في كوا مكرو أي إلهي لسو وسلطان كو ماله سلطان كو ماله بومبونين بومبونية معنوين فربضان ماله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باك هاقا فلان أذكارت إلهه أخذك هاقا فلان وحوليه يساقو همزة نفثة وسوسة أيول ليه وكو وسواسينية وكو جعليسينية لكن محاك هاقا فلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياك هاقا فلان وكاد ضيا سيدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنو شيء وسي شيء آيات كلا وحكو شيء إبليس هوش وقبن دونه وحيري قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وحيد قال إلهي بالله الله يا إبليس كآذيك كراميسي وآدم عليه السلام إيقا دورتي حداد إلا يوم القيامة دب إيدك تدنو شيدونات أوفسنين لأحتنكن وان جرد قوين دون أبو يريد ذريته أبد كالنبي آدم أودان هدان جرد قوين وايو أون جهنم كشوبي وايو إلا قليلا إن يربا يقبد بادي دون تبيو بالله وحقوق المركع قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي كورن بو يري كااديga karaamad badiseed iga dooratay aadam ah la in akhartani ila yawm alqiyama
إلى يوم القيامة هبدا دب إيدكتد وآند إوفسن سيدي هرأين أقلني قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين أرنك هداد إي حقيقي سيد بيوري أنه وحان كشقين دونا بيوري لأحتنكن ذريته إلا قليلا جرد قوين بانكو سمي عوضان الجري حمهان كفافين دونا بدبادي مايان إلا قليلا إير نعيتو لي مو يعني halkaa ballantaas waxaa galay ibliis hawsha uu qabanayaana waa waswasa jidka ilaahay nagala dagaalamo riwaayah uu inagu rido baatilka uu inoogu yeedho jidka ilaahay iyo hanuunka uu inaga hor istaago addoonnimo ilaahay inuu inoo xaqiijiyo inoo diido adduunka uu inoo qurxiyo macaasiga uu inoogu yeedho cibaadada uu culays inaga dareensiiyo xumaha oo uu ina faro wanaaga oo uu inagala dagaalamo intaasuu ballan ku galay hawshiisuna waa taa ciidan baanu leeyahay ciidan jinka oo shayaadiintaana waa leeyahay ciidan insi ahna waa leeyahay وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته